بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد الشيخ عمر عبد الكافي ayaa wuxuu ka sheekeeyay qiso runtii aad iyo aad cajiib u ah wuxuu yiri nin acraabi ah reer baadiye ah badawi ah ayaa wuxuu dhalay saddex wiil markaasuu wuxuu u bixiyay cabdullaahi mid walba ayaa ka mid ah saddexda wiil waxaa magaciisa la oran jiray cabdullaahi markii ajashiisii ay timi oo uu xanuunsaday oo uu nolosha ka quustay si waad dhimanaysaa ayuu wuxuu yidhi cabdullaahi yarith wa cabdullaahi laa yarith wa cabdullaahi yarith cabdullaahi way dhexlayaa cabdullaahi ima dhexlayo cabdullaahi way dhexlayaa isla markiina naftii ayaa ka baxday wiilashii way isqabsadeen mid walba wuxuu yidhi cabdullaahiga la yidhi ima dhexlaynin aniga ma ahayn haddaba waa kee cabdullaahiga aan dhexlaynin wiilashii markii dambe waxay isku afgarteen in ay qaadiga maxkamadda inay u tagaan oo isagu uu maaragtay kala bixiyo qaadigu marka wuxuu joogay magaalada iyagu baadiye joogaan magaaladii ugu dhaweyd marka waxay noqotay in loo safro oo qaadiga la aado maalintii dambe la baxay saddexdii nin waa israaceen waxay aadeen qaadigii jidkii inta ay sii marayeen ayaa waxaa ka hor yimi nin kale oo rabaadiye ah ninkii rabaadiye ahaa raggii wuu salaamay kadibna wuxuu weydiiyey rati ka lumay wuxuu yidhi ratiba iga lumaye ratigaas ma aragteen waxay yidhahdeen maya habay raati wax ratiya oo baadi ah oo lumay maynan arag markii uu dhaqaaqay ayaa mid ka mida u yeeray markaas ayuu wuxuu ku yidhi ratigaagu ma ila ah ninkii rabaadiyaa wuu farxay wuxuu yidhi haa ratigaygu waa ila ah kii kale wuxuu ku yidhi ratigaagu ma daba go'naa oo saynta ma ka go'naa haddana wuu sii farxay ilaa waxaa la tilmaamaya waa ratigiisii wuxuu yidhi haa kii kale oo saddexaad ba wuxuu ku yidhi ratigaagu jiis ma aha laangarre ma aha ninkii rabaadigaa aad buu u farxay wuxuu 100% aaminay nimankan in ratigiisii ay arkeen oo markaas ay meel ku og yihiin markaas ayay waxay ku yiraahdeen maynan arag ratigaagii ninkii uu xanaaqay wuxuu ku yiri ratigaygii baa tilmaamteen saddex sifo ama saddex tilmaam oo uu saddexdaba lahaa ayaa sheegteen waa maray waxaad tirahdeen ratigu ma illa ah ratigaygu waa illa ah marna waxaad tirahdeen ratigaagu ma daba go'naa ratigaygu waa daba go'naa marna waxaad tirahdeen ratigaagu jiis ma aha ilaan garre wuu ahaa marka ratigaygi meel ku sheega nimanka waxay yidhahdeen mayna arag kadib wuxuu yidhi waa idin dacweynayaa qaadiga ayaan iyo maxkamadda ayaan u tegayaa waxay ku yidhahdeen annagaba qaadiga u soconna maxkamadda annagaba muxuu ahaa u soconnayn lala jaanqaad waa la israacay goor casar ah ayaa magaaladii la tegay oo maxkamaddii la tegay qaadigii oo fadhiya dacwadii waxaa furay ninkii rabaadiyaha ee ratigu ka lumay ninka ayaa wuxuu ku yidhi qaadiyow nimankani waxaan weydiiyey ratigi iga lumay waxay tilmaameen oo weliba mid u tilmaameen ratigayga tilmaamihiisii waxay yidhahdeen ratigaagu ma ila ah ratigaagu ma daba go'naa ratigaagu jiis ma aha waxa ay tilmaameen ratigaygii buu ahaa intaasoo tilmaamood saddexduba ratigaygii ahay waxayna ileeyihiin ma hayno meelna kuma ogin qaadigii ayaa wuxuu u yeeray ninkii yidhi ratigaagu ma ila ah markaas ayuu wuxuu ku yidhi ratiga ninkan miyaad aragtay wuxuu yidhi maya see ku ogaatay buu yidhi marka haddaba in ninkan ratigiisa uu ila ah wuxuu yidhi xoolaha khaasatan xoolaha wax daaqa oo ay geelu ka mid yihiin marka ay geedka daaqayaan ama ay cawska cunayaan geelu labada dhinacba geedka wuu ka daaqaa maadaama labada dhinacba uu wax ka arkayo wax uu jeedo waxaan soo arkay buu yidhi dhulkii aan soo maray geedo hal dhinac laga daaqay oo hal dhinac laga cunay sidoo kale dhulkana cawskana hal dhinac laga daaqay sidaas daraaddeed waxaan ogaaday buu yidhi meeshaan in uu maray rati ila sidaasaan u weydiiyey haye wuxuu yidhi adigu see ku ogaatay ratigiis in uu daba go'naa sayn go'naa wuxuu yidhi caadatan geelu marka uu saaloonayo haddii saalada markuu dhigayo wuu firdhiyaa oo saynta ama dabada ayaa saalada firdhisa waxaan soo maray buu yiri oo aan soo aragnay
geel ama rati ama tulid hal ah oo saalootay sidii koombadii camal saalada u dhigtay yacni saaladeeda meel bay isugu aruurtay oo ma fadhisanayn taa waxaan ka fahmay buu yidhi ratigii saalooday meeshaan ku saalooday inuu ahaa rati aan daba lahayn ama sayn lahayn ma firdhan saaladiisu kii kale wuxuu yidhi sidee ku ogaatay ninkaan ratigiisu inuu jiis ahaa wuxuu yidhi raadkii aan soo arkay ayaa wuxuu ahaa labada lugood ma sinayn cumuqa ay dhulka u gelayaan lugna dhulka aad bay u gashay lugna dhulka wax yar bay gashay sidaa daraaddeed waxaan dareemay buu yidhi ratigii meeshaa maray inuu ahaa rati laangara ah ama jiisa qaadigii wuxuu ku yidhi ninkii rabaadhi ahaa iridda ka bax nimankaani wax ratiya ay ku hayaani ma jirto haye uu yidhi idinka marka gartiinna aad u timaadeen maxay tahay waxay yidhahdeen annaga garta iyadu gar weyn weeye gar aan horay u dhicin weeye waa gar cawiis adag wuxuu yidhi maxay tahay gartiinu waxay yidhahdeen aabbaheen saddexda iyada wuxuu noo bixiyey cabdullaahi hal magac buu noo bixiyey markii uu dhimanayay ayuu wuxuu yidhi cabdullaahi wuu dhexlayaa cabdullaahina ma dhexlaya cabdullaahina waa dhexlayaa mid uu annaga ka mid a markaas uu farta ku taagay ama tilmaamayna ma jirin keliya sidaasuu yidhi aabbana wuu dhintay waa cabdullaahiga aan dhexlaynin saddexdeeni mid walba wuxuu aaminsan yahay inuu isagu yahay midka wax dhexlaya oo midka kale uu yahay midka wax dhexlaynin qaadiga wuxuu yidhi arrintiin way adag tahay waa arrin uguba aan horay u arag sidaa daraaddeed caawa seexda beri subax isukaya keena aroortii ayaanu arrintiina xal ka gaaraynay caawana usoo fakaraya saddexdii reer baadiye cabdullaahi waa la kaxeeyey waxaa la geeyey qolka martida lagu soo dhaweeyo qolkan seexdaa la yidhi halkaana cashadiina laydinku keenayaa laydinku martisoorayaa berina maxkamadda imaada markii meeshii la geeyey ayaa mid ka mida wuxuu yidhi warhoo isjira ishaana lagu hayaa jaasuus baana la joogaa waana la dhegaysanayaa waana muraaqabaynayaa isjira sidaas ayuu yidhi xoogaa kadib saddexdoodii waxaa loo keenay casho waxaa loo keenay hilib maraq ah iyo khubus ama kibis ayaa loo keenay mid ka mid ah ayaa hilibkii gacanta geliyey isla markiina uu kala booday markaas wuxuu ku yidhi ka digtoonaado ha cunina hilibkaani waa hilib ay kii kale wuxuu soo qaaday khubustii markaas ayuu wuxuu yidhi kibistan ama khubuskan waxaa karisay ama dubtay haweenay uur leh oo weliba 9 bilood ah haweenay 9 bilood ah ayaa khubuskan dubtay kii saddexaad baa ugu darnaa kii saddexaad wuxuu yidhi qaadiga beri hawsheena gelaya oo aynu u nimi oo arrinteena kala saarayaay waa ibnu xaraami ibnu xalaal maba ahaba aaba ma laha ama si kala dhan waa wecel sidaasuu yidhi markaas ayay seexdeen iyagoon cashaynin ee iskana ay waardiyeynaya bal ciida jaasuuska markaas ay ka baqayeen waagu markuu mariyey intii aysan maxkamadda imaanin ayaa qaadiga waxaa u tegay nin xalay nimankan lagu dhex daray oo dul joogay oo warkooda dhegaysanayay ninkii ayaa qaadiga wuxuu ku yidhi nimankani xalay sidaasay yidhaahdeen mid wuxuu yidhi hilibkana loo keenay waa ay ee ha cunina midna wuxuu yidhi khubuskana loo keenay haweenay 9 bilood u buuxsantay oo uur leh ayaa soo dubtay midna wuxuu yidhi qaadiga biri qadiyadeena gelayaba isagaaba ibnu xaraamiya oo aan xalaal ku dhalan qaadigii wuu naxay kadib wuxuu yidhi ba 3 nin halay keen waa la soo geliyey wuxuu yidhi waxaan maqlay arrimahaas inaad xalay aad tiraahdeen aawe midka yidhi hilibkaani waa hilib ay wuxuu yidhi waa aniga wuxuu yidhi sidee ku ogaatay wuxuu yidhi xayawaanka ilaahay subxaana wa tacaala noo xalaaleeyey ee ugaarta ah ariga geela lo-da ugaarta caadiga ah kulligood wuxuu ka bilowdaa laf kadibna waxaa ku xiga hilib kadibna waxaa ka sarreeya waa buruurta shaxamka ugu sarreeya buruurta ugu sarreysa waxaa ka hooseysa hilibkii waxaa kusii xiga laftii saasay isugu xigaan lafta hilibka buruurta laakiin xayawaanka orda ee ugaarsada ee subaca loo yaqaan asubac ee muxuu ahaa sida libaaxa iyo eyda iyo muxuu ahaa shabeelka iyo waxyaalaha la midka ah haramcadkiiyo muxuu ka bilowdaa wuxuu ka bilowdaa laf waxaa ku xiga baruurta waxaana kusii xiga hilibka oo hilibka ugu sarreeya
haddii libaaxa iyo muxuu ahaa shabeelku uu ugu sarayn lahaa baruurta iyagaaba la ugaarsan lahaa amaba maba ordi kareen way daali lahaayeen maxaa yeelay waxa daalinaya xayawaan kale wuxuu yahay baruurta ugu saraysa sidaa daraaddeed hilibka la ii keenay hilibka noocaas uu ahaa hilib ay buu ahaa oo laftii waxaa ku xigay muxuu ahaa baruurtii hilibkiiba ugu sarreeyay qaadigii wuu yaabay wuxuu yidhi ninkii cuntada u geeyay khaadimkaa laygu waco khaadimkii waa loo yeeray waxaa lagu yidhi hilibkii raggaan xale u geysa sheeg wuxuu ahaa wuxuu yidhi qaadi run kuu sheega haa xilli dambe oo muxuu ahaa maqrib ah ayaa tii nimankan casho hala siiyo xoolihii arigii iima dhoweyn waxaan keliya helay buu yidhi eygaan soo qabtay eygaasaan u gowracay eygaasaan siiyey arrintaas marka way asiibeen wuxuu yidhi adigu sidee ku ogaatay khubuskan inay soo dubtay haweeney uur leh wuxuu yidhi khubuskana loo keenay dhinacna uu ka fiday dhinacna wuu isku dheganaa oo kama bislaanin sidaa daraaddeed waxaan dareemay buu yidhi qofkii khubuskan muxuu ahaa dubay ama sabaayadan kibistan in aysan wada gaari karin marka ay wareejinayso khubuska dab ku wareejinayso inaysan wada gaari karin calooshu ay soo celinayso sidaa daraaddeed dhanka iyadii soo xigay wuu ka faxay dhankii kalena wuu isku dheganaa oo dab kuma gaarin intaan keliya ayay dab ku celcelisay qaadigii madaxu qabsaday wuxuu yidhi bal ha laysoo ogaado gabadha ama cidda karisay khubuskan waxaa la yidhi yaa qaadi khubuskan waxaa karisa hiblaayo waana haweeney uur leh oo 9 bilood ah wuxuu yidhi midda ugu darani waxa weeye sidee ku ogaatay inaan garac ahay ibn xaraami inaan ahay saasaa tiriye sidee ku ogaatay wuxuu yidhi qaadi run ma kuu sheegaa haa qaadi wuxuu yidhi muslima oo carbeed oo dhaqankii iyo wanaaggii carab yaqaana marti u timi oo qadiyad ugu timi inuu u kala saaro inuu jaasuus u diro iyo cid warkooda dhegaysataaye qof xalaala arrintaa ma sameeyo sidaa daraaddeed arrintaa waxay ka dhacda oo nina qof aan xalaal ahayn qaadigii waa naxay halkaa istaag buu yidhi gurigiisii buu tegey gurigiisii markuu tegey ayuu hooyadiis qabtay markaas ayuu wuxuu ku khasbay in ay runta u sheegto cidda uu yahay iyo cidda aabihiisa hooyadiis way qiratay waxay qiratay inuusan aabba lahayn oo aabba la-aan ku dhashay sifo oo hayr sharci inuu ku dhashay qaadigii bas qaadigii wuu soo noqday wuu soo dhex fadhiistay raggii kadib ayuu wuxuu ku yidhi waa yahay aawi kii yidhi hilibkan waa hilib ay markaasuu wuxuu yidhi waa aniga cabdullaahi waa aniga wuxuu yidhi adu waa dhexlaysaa halkaa istaag wuxuu yidhi aawi kii yidhi haweeney uur leh ayaa khubuska dubtay wuxuu yidhi waa aniga wuxuu yidhi adiguna waa dhexlaysaa wuxuu yidhi aawi kii yidhi qaadigu waa wecel ama ganac bas yidhi aniga way suu yidhi adiga ayaan dhexlayninoo wiilashan lama aadan dhalan adaa garaca sidee ku ogaatay buu yidhi wuxuu yidhi garac ma ogaado ilaa garac kale maahane ibnu xaraami baa keligiisa wuxuu ogaan karaa ibnu xaraami kale saddexda wiil waa israaceen hooyadood oo nool ayay u tageen markaas waxay ku yidhahdeen hooyo runta noo sheeg aabaheen saasuu yidhi qaadigaan u tagnay wiilkana la xugmiyey inuusan aabba dhalin marka run noo sheeg wiilkan ayaa dhalay waxay tidhi dhegaystay dhahday labadiinaan isku aabaa tihiin amaa wiilkan aabihiin ayaa wuxuu ka soo helay dariiquu ka helay isagoo aada u yar markaasuu soo kaxaystay gurigiisuu keenay cabdullaahi buuna u bixiyey aabihiin wiilkan ma dhalin ee wiilkan wuxuu ahaa wiil bilaa aabba ahoo sifo muxuu ahaa hayr sharciya ku dhashayo hooyadiis ay tuurtay sidaa daraadii wiil aabba lama ahayn sidii ayaa markaa wiilkaasi meeshii uga baxay labada wiilna ay u noqdeen kuwii maalkii dhaxlay qisada halkaasay ku dhamaatay wajazaakum allahu khayran